بسم الله والد سوجد سعدان كل هالليا وحان ربا إنا كويديو محا كان ديبريشن كمانتا كور وكعي دلنيرادي يردن أمدي يردن عروري عرولة وحلالة تعالى يا حنوذا إمريكا كودعا ويلكا غوريا كوجوغا إلا باتن سنة غالية غبادا كوريا كوجوغتا إلا باتن غاليسا آيباد بادو سوغتي ولي ديبريشن باهيا آيفون بادو سوغتنا عودن بيا ولي ديبريشن باهيا عنتادا غوري غردن أبا كينا إيوغو شاقاكو مالي بيل ما بحيان كرا ما بحيان كورنتا ما بحيان بيا ما بحيان أفريكا ما بيلان صحان كي وحكو عنيان كوركو كدمادو كي كلا soo dhigaysa gabadhu waxay oran waxan inaan cuno ma rabo waad u dalbaysaa cumraad geynaysaa waxay rabaan baa loo gadaya gaari baa loo gadaya haddana way cadhaysan tahay qolka isku soo xidhaysaa wuu cadhaysan yahay sanku taagaya war maxaa dhalinyaradii ku dhacay waa in la isweydiiyo marka runtii waa in la isweydiiyo daraasaadka maanta waalidow WHO World Health Organization iyo mu'asasada la yiraahdo Center of Disease Control ee baadha cudurrada waxay leeyihiin daraasaadkooda markaan soo ururiyay lixdii qofba maanta wuxuu ku nool yahay antidepressant pills oo kiniiniyada iyo dawooyinka loo isticmaalo xanuunada dhimirka ku dhacay depressionka uu kamid yahay waxay leeyihiin saddexdii gabdhoodba midba waxay ku mashquulsan tahay sameynaysa wax la yiraahdo self harm oo ah gabdhuhu maaragtay inay ama sakiin isku saraan ama dhiig iska keenaan ama ay meel iska dilaaciyaan waa runtii arrin hadda ku soo badanaysa weliba gabdhaha high schoolka iyo middle schoolka dhigta ku soo badanaysa weeyaan dadka waaweyn oo kale waxay leeyihiin saddexdii qofba mid dadka 60 kor u dhaafay waa sida ay leeyihiin waxay la tacaaliyaan loneliness cidladuna runtii waa dilaa dadka disho weyn ummadii u fiirsan marka waalido caruur iyo ciroole ma naqaano meel lagu socdo maxaa dhibkan keenay marka waxaan rabaa inaan aad dhibkan waxa keenay laba qodob baan ku sheegay qarnigii 18aad dhamaadkiisii ayaa dadkan psychologist khubarada ku as cilmiga psychology-ga cilmu nafsiga ayaa adduunka been u sheegay manhajkii waxbarashada iyo caafimaadkiina been bay u sheegeen beentaas waa maxay waxay iloobeen waxa la yiraahdo the soul nafta ruuxda waxay yiraahdeen aadamuhu wuxuu ka kooban yahay jid lafo iyo dhiig intaas ka kooban yahay waxay iloobeen wixii u weynaa ee ruuxda ah quraanku wuxuu inoo sheegayaa waalidow aadamaha waxa laga abuuray dhooba laga abuuray waxaanu ka koobanahay jirkan iyo nafta ruuxda jirkan waxa laga abuuray caradana laga abuuray caradan maadaama laga abuuray waalid cunnada jirkani adduunka taala ciidana dul taala moolka aad maxaa lagu gadaa waxaad cunto waxaad cabto waxaad isku qurxiso tiknoolajiyada adduunka xadaarada adduunka waxba kuma soo kordhinin adduunka maanta aan ahayn jirkan sida loo buunbuuniyo maxaan cunaa maxaan cabaa maxaan isku qarxiyaa post surgery ee hadda wajigaaba la geejistaa ee timaha soo beero murqa samayso iscaate waa inta barfuun marso kareem marso saliid waa inta sidaa darteed jidhkan cunadiisu dhan xagganay taallaa psychologistku marka waalid waxay iloobeen qaybtii u muhiimsanayd ee ruuxda ahayd ee nafta ahayd dhoobada lagama abuurin rabbi xaggiisay ka timid sidaa darteed nafta cuntadeedu waxaanu ku quudin lahayn adduunkan ma yaal psychologist ma hayo moolasha ma taalo xaggay taallaa rabbi alcaalamiin gacantiisa ku jirtaa jalla wacala sidaa darteed haddii waalidow naftan aan lagu xidhin rabbigii abuuray aadamuhu cidhiidhi kama baxo waxaad arkaysaa marka cashirkii u horreeyay ilaahay subxaanahu watacaala hooyadeen iyo aabaheen ee nebi aadam calayhi salaam iyo xawaa u sheegay muxuu ahaa waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka qofkii ka jeesta dikrigayga xusuustayda tilmaamahayga taladayda rabbi awaamirtiisa iyo dikrigiisa iyo xuskiisa ka jeesta lacagtaa dooni lahaw caan noqo baraha bulshada millions of viewers lahaw waxaa dooni lahaw ka bixi maysid nolol cidhiidhi ah ilaahay baa yidhi sidaa darteed psychologiska xaggaasay ku khaldameen waa qodobka labaad khaladka kale sameeyeen waxay yidhaahdeen qolada psychologisku depressionada bipolarka waxyaabahan la yidhahdo maaragtay obsessive compulsive disorder isku soo ururi xanuunada dhimirka ku dhaca dhammaantood waa dheecaamo aan isku dheelitirayn oo waxa weeye jidhka khalad yaruu sameeyey ruuxdoo dhanba way ka saareen meesha sidaa darteed hadduu depression ku hayo haddaad walwal haddaad isku buuq haddaad hurda la-aan haddaad shaki waxaas dhan la tacaalayso kiniin bay ku tilmaamayaan waa sababta marka adduunka saan hadda kuu sheegay lixdii qofba waalidow lixdii qofba hal qof uu ku nool yahay dawooyinkan la leeyahay depressionka ee qaada labada qodob baan rabay inaan kuu sheego ibnu qayyim subxaanallah wuxuu leeyahay annagu jidh maba nihinba ruux baan nahay naf baan nahay wuxuu ka wadaa wuxuu leeyahay intaan jidhkanba la abuurin ee naftaada la dhex gelinin intaan waxba la abuurin caalamul arwaax ruux nafo ayaanu ahayn markuu alle subxaanahu watacaala ballanka nala gelayo alastu birabbikum uu ina leeyahay caalamul arwaax the world of the souls jidh ba lama hadlayn ruuxdaa lala hadlayay ruuxdaa jidhkan ka horreysay jidhkan 60 sano 70 sano 80 sano hadba intuu cimrigaaga yahay unbayba ruuxdaada ku dhex jirtaa beri markaad dhimatana ciiddaas yuu ku baabi'i laakiin ruuxdu waa ta rabbi xaggeeda aadaysa hadhowna la soo celinay sida ay diinteenu tilmaamayso ruuxdii sidaa u muhiimsanayd ayay iloobeen dadka psychologiska sheegay maxaa marka soo baxay oon usoo socdaa waalid waxaa soo baxay oon usoo socdaa
ummad dhan oo waxaa soo baxday dhalinyaro leh Gen Z millennial oo ku mashquulsan jidhkan sidii loo raaligelin lahaa. baraha bulshada eegi qofkan intaasoo views leh anigu waxba ma depression baa ku dhici, Facebook ay gali gabadhana ilmo dhashay tan ilaahay waxa ma si depression baa ku dhici. maanta oo dhan jidhkan un bay ku mashquulsan yihiin. waa sababta marka naftu ay u degi la'dahay oo restless u tahay ilaa naftaa lagu xidho rabbigeedii ma degayso. rasuulku sallallahu alayhi wasallam waa kana yidhi markaad tukataan meeshaad tukata mucaadow ha ka kicin ilaa aad tidhaa allahuma innii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik. carabkaagu ha ka qoyanaado dikriga ilaahay, xusuusta ilaahay. qofku markuu hindiso alxamdulilah yarxamuka allah yahdiyaka allah waaslaxa baalak u fiirso ilaahay baad ku xidhaysaa. cunaad cunaysaa bismillah, qof dhintaad arkaysaa ilaahay baad waxa weeyaan waxaad arkaysaa qof musiiba ku dhacday alxamdulilah alladii caafaan mima ibtilaaka bih. yacni diinteenoo dhan waxayna baraysaa waalida waxaan ula jeedaa wax walboon samayno wax walboon dhahno waa wax rabbi dib inoogu celinaya. adkaartoo dhan u fiirso. gaarigaad wadi subxaana alladii sakhara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniin wa inaa rabnaa lamunqalibuun. maxaa ilaahay u noqoshadii iyo gaariganaan wada iska galay? waxaa mar walba lagu xusuusinayaa waalid rabbiga inaad ku xidhnaato, rabbiga inaad u noqoto. haddaadan taa samayn oo jidhkan ku mashquulsanaato waalidow depression kama baxayno, stress kama baxayno, anxiety kama baxayno, bipolar kama baxayno. allaha awlaadeena sugo annagana na sugo. fadlan muuqaaladan sheer gareeya, janaalkana waxaa la yidhaha waalid lagas adaa lagu sameey subscribe dhaha. wassalaamu calaykum waraxmatullah.